رمضان كفليس يا ربي ربي الروحنا وسي يا ربي رجح من كور يا رحمن كو رب العالمين كو رالنا نقو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ولا ليال موضوع عما برنامج ديني oo aan kusoo gudbin doono adkaarta ama wardiga loo akhristo muraadyada in ilaahay sahlo. muraad in ilaahay uu kuu sahlo markii aad rabto wardigii aad akhrisan lahayd ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkan insha allah. culummada islaamka waxa ay sheegeen waqtiyaal iyo makaano la rajeynayo in ducada la aqbalo. waqtiyada waxaa ka mid ah in ducada lagu celceliyo waqtiga habeenka aakhirkiisa ah. habeenka oo 12 saacadood ah marka loo qeybiyo 3 waa 4 saacadood. 4 saacadood ee ugu dambayso ayaa ka mid ah waqtiyaasha ducada in la aqbalo la rajeynayo. sujuuda dhexdeeda ayaa ducada in la aqbalo la rajeynayaa. sidoo kaleeto saacadda ugu dambaysa ee maalinta jumcada ayaa ka mid ah waqtiyada ducada in la aqbalo la rajeynayo oo awqaatul ijaabada ka mid ah. khadiibka khudbada marka uu akhrinayo mimbarka marka uu korahayo sidoo kaleeto waqtigaana waxaa la rajeynayaa in ducada la aqbalo. marka maanta waxaan soo gudbin doonaa wardiga ama adkaarta ugu horeyso ee loo akhristo muraadyada. waa aayad qur-aan ah oo ah sida tan: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. آياداس أيا وحا لغا أخرينها يا كن تضوبقل يسيديتن مر. كن يتضوبقل يسيديتن غور أيا آيادا لغا أخرينها يا وحان اللوذها يا مدو 15 maalmood ah oo xiriir ah ayaad maalin kasta waxaad akhrinaysaa 1780. tirada ma badno haddii la fiiriyo aayadda inta ay qaadanayso marka la akhrinayo, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay qaadato 10 ilaa 15 second ama ilbiriqsi. marka sida ayaad u akhrinaysaa oo waqtiga ayaad akhrinaysaa oo ah 15 maalmood oo xiriir ah. waana arrin la tijaabiyey oo muraadka in ilaahay oo sahlo lagu tijaabiyey. muraadka ayaa lagu sahlayaa insha allah. adkaartaas iyo wardigaas hala akhriyo. barnaamijkana wuu noo socon doonaa oo tixan ayuu noqon doonaa insha allah. qeybaha dambena la socda. waxaana codsanaynaa insha allah in channelka subscribe la saaro si aan kheyrka u wadaagno oo aan u kala faa'iideysano. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.